waa shurunshuurka ama shuuqshuuqa kaasoo afka qalaad loogu yeedho suurikaadka ama sidoo kale mararka qaar loogu yeedho afkooda scientifiga ee loo yaqaan meerkaatiska. waa qaar u nool koox ahaan waxaana inta badan iska kaashadaan cadaawaha kaasay ka mid tahay bahalka loo yaqaan madadka iyo sidoo kale masaska waaweyn oo ka midka yahay kubraha. waa qaar ay isku baayihiin bahalka loo yaqaan dabagaalaha iyo sidoo kale bahalka kale khatarta badan leh kaasoo inta badan masaska iyo bahalaha hoose laaya Soomaaliduna u garan og tahay soongurka ama soogurka kaasoo inta badan laga helo qaaradan Afrika gaar ahaan wadamada koonfureed. waxay ku nool yihiin dhulka hoostiisa waxaanay kuwa waaweyn ka warhayaan heerkulka ama xaraaradda dhulka hoostiisa waxaanay eegaysaa sababta kuwa yar uga soo baxeen godka iyo kuleel ka jiro. waxay isku taagaan labada dambe iyagoo fiirinaya ama eegaya bal inay meelahaasi wax kaga soo socdaan korna mararka qaar kood eega isla mar ahaantaasina mararka qaar sii fuula geedaha si ay meel fog wax uga arkaan khatartana goor hore uga warqaba. waxay ka mid yihiin xayawaanada ilaalada dheeraadka iyo daryeelka dheeraadka siiya dhalahooda waxaanay u daryeelayaan si inta badan aanay xayawaanadu dhalahooda u daryeelin waxaanay kaga tagaan guriga mid weyn ama laba waaweyn. waxay inta badan cunaan cayayaanada sida hangaralaha oo kale. shurunshuurka ama shuuqshuuqa waxa uu ka mid yahay xayawaanada qaaradda Afrika ay hodanka ku tahay gaar ahaan wadamada koonfureed walow wadamada badankooda laga helo haddana kuwa ugu tirada badan waxa laga helaa dalka Koonfur Afrika iyo sidoo kale Namibia. inta ugu badan waxay ka feejig yihiin madadka ama bahalka loo yaqaan baaska kaasoo si yar u dafi kara hawadana ula bixi kara. waxay ka mid yihiin xayawaanada isla markaba tiro badan dhala kuwaasoo si fudud u tarmi kara una noqon kara number badan kuwaasoo ku baahaya dhulka oo dhan. waxaa lagu garan og yahay shurunshuurka waa qaar iyagu isdaryeela isla mar ahaantaasina midba midka kale uu u fidho ama baarka sare u feedho. yaa la ku yari waxay waqtigooda ugu badan ku qaataan godka balse marka xaraaraddu isbedesho ee kuleel noqoto waxa u baxaan dabadda.